afrikaanku waxa ay soo saaraan ma isticmaalaan ama ma quutaan, waxa ay quutaan ay isticmaalaanna iyagu ma soo saaraan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض دمانتين با كسو دوادا كلان كلا iyo taxanaheena buugadaag. Kulankan waxa aynu ku soo qaadanaynaa waayihii iyo wax soo saarkii mid ka mid ah aqoonyahankii iyo haldoorkii guud ahaan dunida soo maray gaar ahaan qaaradda Afrika qarnigii 20aad. Professor Ali Al-Amin Mazruuci waxa uu ahaa foolaad aqoonyahan cilmi baare iyo suugaanyahan doodo horle iyo aragtiyo cusub ku soo kordhiyay arrimaha ku saabsan Afrika, gumaystihii Afrika ka tagay, dhaqanada kala duwan ee Afrika ku loolamaya, dhaqanka Afrikaanka ee asalka ah, diinta Islaamka imaatinkeedii iyo guud ahaan siyaasadda iyo horumarinta Afrika. Professor Ali Al-Amin Al-Mazruuci waxa uu ku dhashay 1933 magaalada Mombasa, waxaana dhalay oday waxgarad iyo aqoonyahan ahaa oo magaalada ku noolaa oo la oran jiray Amin Al-Mazruuci. guud ahaan qoyska Mazruuciyiinta ama qoyska uu ku abtirsado Ali Al-Mazruuci wuxuu ahaa qoys taariikh iyo fac weyn ku leh magaalada Mombasa ee magaalo xeebeedda ah ka hor xataa intii aan la samayn dalka Kenya oo ay haayeen iyagu markaa dadkii inta badan xukumi jiray deegaanka iyo cidda hoos timaada. Professor Ali Al-Mazruuci waxbarashadiisii hoose iyo midii dugsigaba waxa uu ku soo qaatay magaalada Mombasa. waxbarashadiisii sare ee jaamacaddana waxa uu shahaadada markaa heerka koowaad ama bachelor uu ka helay deeq waxbarasho oo dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Manchester, halkaas oo uga sii gudbay markaa Mareykanka oo halka lafteedana uu wax ku soo bartay. 1967 ayuu Professor Ali Al-Mazruuci ku soo noqday Afrika, gaar ahaan wadanka Uganda, halkaas oo uu markaa ku biiray jaamacadda Makerere University oo uu waxna ka dhigi jiray sidoo kalena hormood ku ahaa kulliyadda dhaqaalaha iyo sayniska ka hor intii aanay isku dhicin hogaamiyihii ama madaxweynihii dalka Uganda markaa ka talinayay Idi Amin Dada. waxaa la sheegaa dhaleecayn iyo dhaliilo nidaamka Idi Amin Dada iyo sida uu wax u waday uu ka qori jiray oo uu ka jeedin jiray Mazruuci iyo diidmo uu diiday in uu la shaqeeyo nidaamkiisa awgeed inay sabab u ahaayeen in Ali Mazruuci uu ka barakaco oo uu ka baxo dalka Uganda isla markaana uu guuro dalka Mareykanka. waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka isagoo markaa qaxoonti ay soo saartay aragtidiisa iyo afkaartiisa oo lagu culuubay awgeed ahi buu u wareegay halkaas oo markaa uu arrimaha akademiga iyo waxbarashada iyo cilmi baarista uu ka sii waday. Professor Ali Amin Al-Mazruuci waxa la sheegaa in hogaamiyihii xorriyadoonka ama gobonnimadoonka ee dalka Ghana Kwame Nkrumah uu ahaa ama dadkii saameeyay qofkii ugu weynaa ama ugu muhiimsanaa uu ahaa isla markaana ku saameeyay ama raad ay kaga tagtay aragtidii ban Afrikaanka ama Afrikaannimada oo la weyneynayay oo Kwame Nkrumah uu caan ka ahaa, taasoo keentay baa la yiraahdaa in Ali Mazruuci noloshiisii dambe iyo aqoontiisii iyo daraasadihii dambe ee uu sameynayay afkaartiisaba ay raad weyn ay ku lahayd markaa aragtida Kwame Nkrumah. Professor Ali Mazruuci waxa uu caan ku noqday oo lagu bartay 1986 taxanihii muuqaalka ahaa ama documentary filmkii uu ugu magac daray markaa The African a Tribal Heritage, Afrikaanka saddex dhaxal ama saddex dhaqan. muuqaalkaas oo 9 qaybood ahaa waxa soo saartay idaacadda BBC-da iyo television Nigeria ka howlgalay waxaanu inta badan ku faaqidi jiray sida ciwaanka ka muuqata saddex dhaqan oo saddexdaasiba ay saameeyeen identity-ga ama sumadda qofka Afrikaanka ah. waa midda koowaad oo uu leeyahay markaa waa dhaqankii hore ee Afrikaannimadii iyo asalkiisii ee duuga ahaa ee uu asalka u lahaa qofka Afrikaanka ahi, iyo dhaqanka labaad oo ahaa midkii kristaamaynta iyo midkii ay reer Yurub la yimaadeen ee ku lamaanaa gumaystaha, iyo dhaqanka saddexaad oo uu leeyahay waa midkii Islaamka iyo Islaamnimadii Afrika ay keentay. saddexdaa dhaqan iyo sida ay u saameeyeen qofnimada iyo identity-ga qofka Afrikaanka ah ayuu documentary-ga ku lafaguray. waxa documentary film inta badan loo arkayay in aanu ahayn documentary film markaa raali gelinaya ama
ay jeclaayeen dadyo badan oo ay ugu horeeyeen marka reer galbeedku waxaa documentary film dadka aan Afrika aqoon uu ugu soo bandhigay Afrika waxa ay tahay waxa ay gudo iyo waxa ay gasho isla markaana uu dadka Afrikaanka ah iyo guud ahaan dunidaba uu tusayay dhinacyada kala duwan ee ama la iska indhatiro ama aan ogeyn Afrika kaasoo markii dambana uu book iyo qoraal rasmi uu ka sameeyay Professor Ali Al-Mazruuci oo sida aynu sheegnay mid kamid ah haldoorka iyo muthaqafka ugu waaweyn aqoon-yahanka ugu waaweyn qarniga 20aad Afrika iyo duniduba ay soo saartay waxa uu qoray in ka badan 20 book iyo boqolaal maqaal oo dhamaantood la faafiyay isla markaana mowduuc kala duwan oo laakiin arrimaha siyaasadda dhaqanka qoyska sooyaalka diinta islaamka gumaystihii iyo Afrikaannimada oo weyneynayo uu kaga hadlayo waxaan u leeyahay aragtiyo dhaqaale iyo kuwa dawladeed oo uu marka Afrika iyo sida ay u horumari karto iyo sida ay u jiri karto u sameeyay bugaagta uu qoray Professor Ali Mazruuci waxa kamid ah A Tale of Two Africa sheekada laba Afrika oo uu kaga warramay marka laba dal oo Afrika South Africa iyo Nigeria kala duwanaanshahooda wuxuu leeyahay tusaale ahaan Nigeria waa dal soo saara ama bani aadam badan ama dad badan soo saara halka ay South Africa tahay meel macdan badan iyo minerals badan laga soo saaro Nigeria wuxuu leeyahay dalka Afrika ugu badan ee saliid soo saara South Africa waa dalka ugu badan ee saliid isticmaala Afrika wuxuu leeyahay South Africa waa dad ay la nool yihiin dad cadaan ah oo ogolaaday marka in ay dhex degaan oo la noolaadaan Nigeria laakiin ma hadal laga ogol yahay ajnabi iyo gumaystihi iyo dadkii cadaan ay la noolaadaan Nigeria wuxuu leeyahay waa dal lagu loolamo ama uu ka jiro fikirka lagu loolamayo diimuhu iyo diintu halka South Africa ay tahay buu leeyahay mid cilmaani ah oo waxa weeyaan aan shaqo ku lahayn mid diineed wuxuu leeyahay marka Afrika labada sheeko iyo kala duwanaanshahooda iyo diversity-ga iyo kala gadisnaanta dhaqan iyo dawladeed iyo bulsho ee labada dal ayaa tusaale u noqonaya in aanay Afrika hal sheeko kaliya aanay ahayn laakiin ay sheekooyin badan iyo wajiyo badan oo aan hal wax kaliya lagu qiyaasi karin ay tahay buugta kale ee uu Professor Ali Mazruuci qoray waxa kamid ah buugga la yiraahdo African Institutions The Challenge to Political, Social and Economic Foundation of Africa's Development caqabadaha haysta marka hay'adaha dawliga ah ama institutionska dawladeed ee Afrika kuwaas oo marka keeni lahaa horumar bulsho dhaqaale iyo kuwo siyaasadeedba wuxuu leeyahay laba aragtiyood ama laba caqabadood oo waaweyn baa jira oo doodahaas waxa weeyaan ay ku saleeyihiin oo dood ah ama arrin ku sal in Africa institutionskeeda iyo qaabka loo dhisay ay noqoto qaabkii Afrikaanku ay lahaayeen asalka ahaa iyo midda cusub ee hadda dawladaha gumaystaha ahaa ee Afrika gumaysanaya ee Europe ay keeneen in la isticmaalo wuxuu marka labada ideolojiyadood iyo sida macnaha ay halis ugu yihiin ama sida ay hirdankoodaasi uu institutionskii Afrika iyo hay'adihii Afrika ee dhismi lahaa ee horumarka keeni lahaa ee dhaqaalaha keeni lahaa ee siyaasad xasiloon keeni lahaa ay caqabada ugu yihiin buugga laftiisa ku faaqidaya buugga agta waxa kamid ah kale ee uu qoray Professor Ali Mazruuci buugga la yiraahdo Islam Between Globalization and Counter-Terrorism oo uu kaga warramayo leeyahay islaamku qarniga 21aad ama qarniga 20aad inuu u dhaxeeyo saddex wuxuu leeyahay dhadhaar ama saddex dhagax dhexdooda inuu ku jiro saddex dhagax marka ayaga xidhiid dhexdooda uu ka dhaxeeyo oo globalizationka ama edagowga adduunka iyo isku xidhnaanta casriga ee timi iyo mid la yiraahdo terrorism iyo argagixisada oo loo waxa weeyaan sibir saaray ama la kor saaray islaamka iyo diinta islaamka iyo midda saddexaad oo uu leeyahay waa empire-ka ama waa maamulka iyo boqortooyada hadda Mareykanku waxa boqortooyada u eega mataliska Mareykan ee marka hadda qarnigan 20aad 21aad waxa weeyaan dunida caam yeelay saddexdaas oo isku xidhan iyo sida ay halis u galiyaan buu leeyahay islaamka iyo dadka muslimiinta iyo qaabka ay tahay markaas inay ula tacaamulaan ama ay ula tacaalaan dadka muslimiinta ah buugga ka soo bandhigaya buugta qoray aad u badan sidaan sheegnay 20 buug ka badan yihiin iyo boqolaal maqaal oo kala duwan oo cilmiyeed oo uu qoray marka Professor Ali Mazruuci Professor Ali Mazruuci hawlaha badan shaqooyinka iyo aragtiyaha iyo wax soo saarka maskaxeed ee badan uu sameeyay dunida wuxuu kaga yeeshay marka sumcad iyo ixtiraam hor leh inkasta oo mar walba uu yahay midaan u habranin oo aan macnaha aan
waxa ay dadku jecel yihiin ama maamuladu jecel yihiin ama dadka awoodda badan la jecel yihiin aan wax ku qorin ee marar badan sida aan hore u soo sheegnay fikirkiisa awgii caqabado badan uu la kulmay haddana waxa ay noqotay wax soo saarkiisa iyo aragtidiisaasi in qiimeyn xataa la sameeyo uu noqday qarniga aynu noolnahay adduunka inuu kamid yahay 100 qof ee ugu saameynta badan isla markaana waxa weeyaan dunidu marka ay isla qirsan tahay waxa uu helay abaalmarino kala duwan afkaartiisa iyo aragtiyaha uu soo gudbiyayna waa aragtiyo waaraya oo inta badan dadka Afrikaanka ah sida ay dawladnimadooda u dhisayaan sida dhaqankooda iyo diinta iyo albaxnimada casriga ah isku waafajinayaan sida ay identity-gooda iyo ahaanshahooda iyo sumadooda ay u sugayaan ama ay u qeexayaan iyo guud ahaan sida nidaamka siyaasadeed iyo dawladeed ee Afrika ay u horumarin karaan waa afkaar iyo aragtiyo horle oo waxa weeyaan uu ka tagay isla markaana la dhaxalsan doono Professor Ali Mazruuci 2014 buu geeriyooday oo lagu aasay isla magaaladii uu ku dhashay ee Mombasa halkaasi oo marka waxa weeyaan uu ku geeriyooday maqaaladiisa iyo muuqaaladiisa aynu ka hadlaynay ee Tribal Heritage oo documentary-gaasi kamid yahay iyo bugaagtiisuna waa kuwa hadda baahay oo meel walba laga heli karo gaar ahaan muuqaalka documentary-ga oo kale YouTube-ka oo kale cid ka baadha ay ka heli karto iyo shabakadaha kale ee internet-ka cid kasta oo xogtiisa iyo bugaagtiisa heli kartana waxa aan kula talin lahaa inay akhrido ama daawato kulanka kan ku xiga intaan isugu iman doonana dhamaantiin waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiga soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.